تقدم مدى قبل محمد أمين عمر عبدي أيام تجدد كوفيد-19 قبل قبل كوريتشي طبعا هامات أو قلب كنفط الله استعماله أكسجينتا وحنا كلا وريجي برساب قبل قبل إحنا قدوميها جدد كورونا فيروس قبل قبل قلب كان يا الله قلت لقى لي إن لقول تعالى عابق كورونا إسلام مركزنا لوجو هذه قدتك أو أصيب عابقني وجوهرين وحالك سيكها الله ما يركد مدى قبل محمد أمين عمر عبدي وحنا ويري waxaan jecel gudoomiye inaan halkan idinku wareejino ka dawlad hoos ahaan agab aan ugu talagalay in lagu xoojiyo adeega treatment center-kan gobolka ee ugu talagalay COVID-19 wixii caafimaadka runtii lagu xoojiyo agabkan oo agabka ugu muhiimsan ee xanuunkan dadka oo asiibo ay aad iyo aad ugu baahan yihiin oo ah oxygen-ti halkan waxay noogu diyaara 10 haamood oo kuwii waaweynaya oo 10 kuwa ay cusub yihiin saacadahoogii iyo oxygen-ti ku jira iyo 5 kuwii yareeray oo aan saacadahana u soo iibinay la soo buuxiyay iyo qalab kale oo iyaguna u muhiim ah qofka u baahan oxygen-ta iyo xaaladiisa oo ay ka mid yihiin balance oximeter-ka oo ilaa 10 xabba ah ka runtii ka gudiyahan aan jecel lahay inaan ku wareejino gudida COVID-19 geestiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalaca waxaana uu tibaaxay in qalabkani loo baahnaa looguna adeegi doono dadka wasiibo caabuqa corona halkan oo markii hore xabad kaliya oxygen ay taalay maantana lagu soo kordhiyay haamaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo qalabkan kale ee laga shaqeynayo oxygen-ta runtii goobtani oo goobta kaliya ee gobolka runtii Gabiley ah xarunta treatment center-ka haddii qof u baahdo in la keeno oo xaaladiisa ay noqoto caseska critical-ka ah in halkan lagula tacaalo si uu helo daryeel iyo adeeg ma garanaysaa baahidiisa daboosha ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa kiisaska maanta gobolkeena laga helay inay iska sakhiran yihiin oo ay guryahoodii ay joogaan laakiin xaaladdu haddii ay u baahato in oxygen caawiyo loo baahdo in runtii goobtan la keeno aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha golaha deegaanka runtii qalabkaas oo loo baahnaa oo runtii in badan badee aan ku taameynay waa maxamed cabdi cumar maxamed oo din warkur baynta SBC gobolka Gabiley